Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kula wacan oo wanaagsan meel walba ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii arrimaha Soomaaliya oo aad maalin walba marka laga tago maalimada Jimcada aad ka daawataan shabakada wararka ee warqaad tube ama warqaad.com maanta waa 28 bisha Abriil 2018 waana maalinimo Sabtiya qodobada barnaamijka aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweynaa doona wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya hase haatee aynu ku bilowno xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta oo wararkii ugu dambeeyay aynu taxana ugu dhignay si aan qodobada ugu dambeeyay aynu soo qaadano ayaa waxa soo baxaya in labada wadan xiriirkooda wali uu yahay mid cirka isku sii shareeraya dowladda wadanka Imaaraadka Carabta ayaa waxay wadaa dadaalo weyn oo ay ku doonayso inay ku hanato maamul goboleedyada dalka ka jira gaar ahaan dhinaca Jubbaland iyo Puntland ayaa waxa ay kulamo kula leedahay wadanka Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Abu Dhabi dowladda Imaaraadka Carabta ayaa aragtay in guul darro weyn dhinaceeda ay ka soo gaartay xiriirka xumaaday ee Soomaaliya iyadoo aan micno weyn aan u arag saaxiibtinimada ay la galayso sidoo kale maamul goboleedyada dalka ka jira dowladda Soomaaliya ayaa u muuqatay in uu dhamaanayo ama uu ka dhamaanayo dulqaadka ay Imaaraadka ku hayso kadib damaciisa ah qaybi oo xukun waxaana jira warar sheegaya in dowladda federaalka aysan aqbali doonin go'aanada maamul goboleedyada qaarkood ay kula heshiiyeen Imaaraadka Carabta madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan madaxweynaha Puntland iyo kan Jubbaland ayaa ku sugan dalka Imaaraadka Carabta kuwaas oo si rasmi ah u taageeray dowladda wadanka Cabdiweli Gaas oo shir ku qabtay Abu Dhabi ayaana sheegay in Muqdisho aysan ahayn Soomaaliyana aysan ahayn Muqdisho oo kaliya hadalkaasna waxa uu dad badan u yeelay fasiraadyo kala duwan sidoo kale waxa uu sheegay in Imaaraadka uu sii wadi doono taageerada Puntland oo isku dayi doono inuu dhexdhexaadin ka dhex sameeyo xukuumadda Abu Dhabi iyo tan Muqdisho sakasaba bartilmaameedka Imaaraadka ahaa inuu awood ballaaran ka sameeyo Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika ayaa u muuqata mid guul darro weyn ay ka soo gaarayso waxaana arintan ugu guuleysanaya wadanka Turkiga oo haysta kalsoonida shacabka iyo dowladda Soomaaliya warbixin ay xilli hore baahiyeen saxaafadda caalamka qaarkood ayaa lagu sheegay in Imaaraadka uu tartan xoogan kula jiro Turkiga laakiin saameynta Turkiga ee wadamada dariska ah sida Syria, Iraq iyo Afrika ayaa hoos u dhigtay bartilmaameedka Imaaraadka oo taageero weyn ka helay dowladda wadanka Mareykanka wixii ka dambeeyay weerarkii daarihii mataanaha ee Mareykanka 2001 Turkiga ayaa markale ka guuleystay Imaaraadka Carabta kadib markii Abu Dhabi iyo saaxiibadooda gobolka Khaliijka ay xayiraad saareen Qatar laakiin xukuumadda Ankara ayaa garab istaagtay Doha Turkiga ayaa ballan qaaday inuu buuxin doono kaalintii uu Imaaraadku baneeyay oo uu Soomaaliya ka hayay waxaana safiirka Muqdisho u jooga Turkiga Olga uu tilmaamay in marnaba aysan ogolaan doonin in la faragelin lagu sameeyo siyaasadda gudaha Soomaaliya kulan uu la yeeshay ra'iisul wasaare Khayre ayaa safiirka wadanka Turkiga waxa uu tilmaamay in dhammaan kaalmihii Imaaraadka uu bixin jiray Soomaaliya Turkiga siin doonaan labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa xilli sii horeysay waxay dalka ka mamnuuceen shirkadda Imaaraadka laga leeyahay ee DP World taas oo ah shirkadda toddobaad ee adduunka dhanka dekedaha ugu weyn waxaase go'aanka laga sugayaa inuu meel mariyaan oo ay saxiixaan xukuumadda kadibna uu saxiixo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaaliya waa dal madax bannaan oo leh go'aan ka gaaridda cidda xiriirka uu la yeelanayo ama xiriirka u jarayo sida waxa hore u yiri madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xildhibaan Cabdiraxmaan Odawa oo soo noqday wasiirka arrimaha gudaha dalka oo ka jawaabayay hadalkii Cabdiweli Gaas uu ka sheegay Abu Dhabi ayaa isna fariin uu soo qoray waxa uu kaga hadlay hadalkaas isagoo tilmaamay in hadalka ka soo baxay Cabdiweli Gaas madaxweynaha maamul goboleedka Puntland uu yahay mid aanan la qaadan karin xildhibaanka waxa uu yiri Muqdisho waa magaalo madaxdeena waxaan dhageystay shirkii jaraa'id madaxweyne Gaas uu ku qabtay dalka Imaaraadka kaas oo ku sheegay Muqdisho Soomaaliya ma aha Soomaaliyana Muqdisho ma aha waxaa la soconaa inay jirto kala aragti duwanaansho u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Gaas oo ku saabsan khilaafka Khaliijka waxaana ka filaynay wixii eedeynah oo arrinka la xiriiray inuu u jeediyo maamulka federaalka ee talada haya uu yiri xildhibaanka mudane Gaas munaasib kuma ahayn buu yiri inuu Muqdisho maago inkarana Soomaalinimadeeda ayadoo ah meesha uu wax ku bartay kuna shaqo bilaabay buu yiri buqcad kasta oo Soomaaliyeed
ku taala waa Soomaali, waa meel kasta oo Soomaaliya ku taala waa Soomaali, Muqdishona waa hooyadii dalka iyo dadka Soomaaliyeed ayuu yiri xildhibaan Odawa oo kamid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya horena u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha. haddaba tan iyo markii uu xumaaday xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka waxaa soo baxayay in aflagaado xoogan ay koox Imaaraadka ah u geysanayaan madaxda iyo dalka Soomaaliyeed. kooxdan oo ah kuwa loo sameeyay inay baraha bulshada ka taageeraan dowladda Imaaraadka Carabta ayaa fariimaha ay soo dhigayeen waxay ku sheegayaan in Soomaaliya ay tahay dal daciif ah dadkiisuna ay kaliya lacag ama hunguri u nool yihiin. xataa warbixinada la soo dhigay waxaa lagu aflagaadeeyay madaxweynaha Puntland oo kamid ah taageerayaasha Imaaraadka Carabta markii uu tagay Abu Dhabi kaas oo lagu sheegay in uu shilmaan raadis u ahaa. dhanka kale shirkadda DP World ayaa sii wada howlaheedii dekada Berbera sidoo kale waxay shaqada ka sii wadi doontaa sida madaxweynaha Puntland uu sheegay dekada magaalada Boosaaso waxaa la sugayaa in dowladda federaalka Soomaaliya arrinta talaabo ka qaado. warar kale oo saacadihii la soo dhaafay si weyn isu soo tarayay ayaa waxay sheegayaan in Imaaraadka uu joojiyay fiisooyinkii uu ku bixi jiray baasaboorka Soomaaliya iyo in xataa iqaamooyinka la siiyo dadka haysta baasaboorka Soomaaliya. taas bedelkeeda Imaaraadka ayaa waxay fiisooyin u ogolaadeen dadka haysta baasaboorka Somaliland oo ah dal raadinaya aqoonsi caalami ah. arrintan oo ah mid ay ku xumeynayaan madaxda iyo dalka Soomaaliyeed ayaa ilaa iyo haatan aysan dowladda waddanka Imaaraadka aysan ku dhawaaqin, laakiin shirkadda diyaaradaha airline la yiraahdo ayaa waxa ay fiisooyin siisay dad haysta baasaboorka Somaliland kuwaas oo waddanka Imaaraadka ku tagay. sidoo kale waxaa la soo sheegayaa inay jiraan dad haysta baasaboorka Somaliland oo iqaamooyin gaar ah waddanka ka haysta. Soomaaliya ayaa dhinaca kale xiriirka ay la leedahay wadamada Carabta waxa uu muuqdaa mid aanan wanaagsanayn gaar ahaan dhinaca waddanka Bahrain oo la sheegayo in dhinaca waddanka Imaaraadka Carabta uu la safan yahay. sidoo kale waddanka Sacuudiga ayaa la aaminsan yahay in dhinaca waddanka Bahrain uu ku dhinac yahay. laakiin dowladda waddanka Qatar oo kamid ah saaxiibada muddada dheer ee Soomaaliya ayaa waxay taageero u haysaa dalka Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana arrintan la sheegayaa in ay sabab u tahay dowladda waddanka Masar oo doonaysa inay dhinaceedana saldhig ay ka samaysato ama saldhig ay ka furato magaalada Muqdisho ama qayb kale oo dalka Soomaaliya ka tirsan. Soomaaliya ayaa sidoo kale xiriir wanaagsan leh waddanka Qatar sidoo kale waddanka Kuwait ay xiriir leedahay sida wararka la tilmaamayo, laakiin saaxiibka ugu dhow ee Soomaaliya ay leedahay xilligan ayaa lagu sheegay in uu yahay waddanka Turkiga. haddaba iyadoo arrimaha oo dhinay jiraan ayaa siyaasiga reer Kenya ee Faarax Macalin oo waayadii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu dalbaday in maxkamad la soo taago madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland. siyaasiga reer Kenya ee caanka Faarax Macalin ayaa si weyn u weeraray labada madaxweyne ee maamulada Soomaalida ee dalka Imaaraadka u tagay xiriir dhowna la leh waddanka. Faarax Macalin oo maalmaha Muqdisho ku sugan kana mid ah taageerayaasha madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas iyo madaxweynaha Jubbaland ku tilmaamay dambiilayaal qaran. warbixin yar oo uu soo dhigay begiisa Facebook ayuu ku yiri laba khiyaanada ku kacday ee madaxweyne goboleedyada booqday Imaaraadka waa in dowladda Muqdisho talaabo ka qaadaa. Gaas iyo Madoobe waa in maxkamad la soo taagaa oo xabsi la dhigaa. falalkooda waxa ay dhaawacayaan qarannimada Soomaaliya waxayna galeen khiyaano qaran. Farmaajo iyo Khayre waa inay talaabo qaadaan ayuu yiri Faarax Macalin oo fariin kulul soo dhigay bartiisa bulshada. Faarax Macalin oo si weyn u dhaliila mucaaradka dowladda Soomaaliya xilligan iyo dowladda waddanka Itoobiya ayaa taageero weyn u ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre isagoo oo soo jeediyay in Imaaraadka Carabta guud ahaanba laga saaro Soomaaliya isla mar ahaantaana xiriirka loo jaro. isla arrimaha waddanka Imaaraadka Carabta iyo Soomaaliya ka dhaxeeya ayaynu ku guda jirnaa waxaa soo baxaya warar sheegaya in la hakiyay dhinaca safaaradda waddanka Imaaraadka Carabta howlihii ay ka waday magaalada Muqdisho sida ay lagu soo gaarayaan xog oo aynu ka helnay siyaasiyiin ku sugan magaalada Muqdisho. safaaradda Imaaraadka Carabta ay ku lahayd magaalada Muqdisho ayaa inta badan hawshii joojisay. xogtan helena ayaa muujinaysa in dowladda Imaaraadka Carabta ay si kumeel gaar ah u joojisay shaqooyinkii ay ka dhex socday safaaradda ay ku leedahay Muqdisho.
amarka lagu sii hakanayo shaqooyinka ka dhex socday safaaradda ayaana la xaqiijiyey inuu kasoo baxay wasiirka arrimaha dibadda isutaga imaaraadka carabta. wasaaradda arrimaha dibadda imaaraadka ayaa ka dhowr sugaysa isbedel ku imaada khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo wadanka Imaaraadka. sidoo kale dowladda Imaaraadka ayaa waxay si ku meel gaar ah Muqdisho kala dhex baxday diblomaasiyiinteedii kuwaas oo dalka kusii maqnaan doona inta laga hagaajinayo xiriirka labada wadan. dowladda Soomaaliya ayaa ku biyadiidan in dowladda Imaaraadka Carabtu ay ku takrifasho qarnimada Soomaaliya taasoo sabab u noqotay in xiriirka labada wadan uu xumaado. masacada dhabaha ay dowladda Imaaraadka Carabta u mari doonto xalinta xiisadda siyaasadeed ee kala dhaxaysa Soomaaliya maadaama wadankan Geeska Afrika dhaca uu muhiim u yahay siyaasadeeda amaba awood ay ku doonayso inay ku ballaariso dhinaca iyo Geeska Afrika. waa hagaag daawadayaal qaybihii kale ee barnaamijka aynu sii gudagalaynaa. ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulan degdeg ah maanta isugu yeeray golahiisa wasiirada. waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay xubno ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo xildhibaano ahaa. kulankan ayaa waxaa looga hadlay xaaladda dalka uu ku jiro, gaar ahaan fatahaadda webiga uu ku sameeyey deegaanada maamulka Hirshabelle. ra-iisul wasaaraha dalka ayaa shir jaraa'id qabtay markii kulanka uu soo dhamaaday. maanta xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ka dhacay shir ay ka soo qayb galeen xubno kala duwan ee golaha wasiirada, xildhibaano iyo culumad diinta Soomaaliyeed, haweenka Soomaaliyeed iyo dad kale Soomaaliyeed oo ka kala yimid qaybaha kala duwan ee bulshada. shirkaas waxaa lagu gorfeynayay xaaladda cusub ee ka taagan dalka, gaar ahaan fatahaadda webiyada Jubba iyo Shabeelle iyo dhibaatooyinka ku qabsaday dad badan oo Soomaaliyeed, magaalooyin badan oo hadda ay dhibka ugu culus ka muuqato, gaar ahaan magaalada Beledweyne. madaxda iyo culumaadiinta iyo haweenka isugu yimid shirkaasi waxa aan isku raacnay in aan u gurmano dadka Soomaaliyeed sida ugu dhaqsaha badan. dowladda Soomaaliyana awood walba ay hayso inay ku jihayso sidii dadkaas loogu gurmo lahaa sida ugu dhaqsaha badan. waxaa kaloo isku raacnay in la aasaaso guddi u gurmada dadkaas ay waxyeeladu gaareen oo ka kooban 22 qofood oo uu madax u yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliyeed. waxaa qayb ka ah wasaarado kala duwan ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda amniga, wasaaradda gargaarka masiibooyinka, wasaaradda beeraha, wasaaradda biyaha. waxaa kaloo ka mid ah culummada Soomaaliyeed oo halkan taagan oo aad u jeedaan. waxaa kaloo ka mid ah xildhibaano Soomaaliyeed oo qayb ka ah. waxaa ka mid ah haweenka Soomaaliyeed oo iyaguna shirkan joogay maantay. guddigaasi waxa uu ka shaqayn doonaa sidii dadkaas loogu gurman lahaa sida ugu dhaqsaha badan. shirkaasi markuu dhamaaday kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan haddana isugu yeernay shir kale oo aan ugu yeernay dhammaan safiirada iyo hay-adaha caalamka ee nagala jooga halkan, ama ha ahaadaano UN-ka ama ha ahaadaano hay-adaha international iyo local NGOs-ka. iyagana waxaan u sheegnay xaaladda dalka uu marayo. waxaan ku dhiirigelinay inay sida dhaqsaha badan caawinaad u gaarsiiyaan dadkaas ku dhibaatoobay dhibaatadii aan soo sheegay. waxayna ballan qaadeen inay sida ugu dhaqsaha badan ay caawinaad arrimahaas la xiriira geysan doonaan. waxaa inoo haray shir aan isugu yeeri doono arrimahaas la xiriira oo ah shirka amniga, si hay-adaha amnigu ay iyaguna qayb uga qaataan xal u helidda dhibaatooyinka dhacay. laakiin waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan u sheego sida aan mar walba u sheegi jirnay. mar walba oo dalkan dhibi ka dhacdo, meesha ugu horeysa oo aniga igu soo dhacda waxay tahay dadka Soomaaliyeed iyagu inay isku tashtaan, inay iyagu isku gurmadaan. annagu inaan isku tashanno, dhib walba oo nagu dhacana annagu aan xallisano. waxaan aaminsanahay maadaama aan leenahay guddi ay culimmadeennii hormuud ka yihiin in annagu aan isku gurmano dadka Soomaaliyeed marka meel walba ay joogaan. waxaan ka codsanayaa inay sida ugu dhaqsaha badan walaalahooda ugu soo gurmadaan. gobollada dariska la ah meelaha dhibaatadu ka dhaceen oo aanay biyuhu iyo dhib ku saameyn, waxaan leenahay u gurmada walaalihiin. 22 qofood oo xubnaha ka ah guddiga aan maanta halkan ku dhisnay oo aniga iyo madaxweynuhu aan ka ballanay inaan dhisno, iyagana waxaan ka codsanaynaa in sida ugu dhaqsaha badan
ay shaqadooda u gutaan shirka ugu horeeyana ay galaan soo saaraan baahida loo qabo caawinaadda ummadda Soomaaliyeed ayna iyagoo kaashanaya hormuudka culimada Soomaaliyeed ay iyagu bilaabaan sidii ay ula hadli lahaayeen dadka Soomaaliyeed sidii loo caawin lahaa intaas ka sokow wixii yaala gargaar ama bac ama tendo ama daawo oo ay dawladdu hadda hayso waxaan ku bixinaynaa amar in la gaarsiiyo dadkaas dhibaataysan qof walba oo ku waxyeeloobay waxaan leenahay waa lagu soo gurmanayaa intii dhibaato ku gaartay waan u duceynaynaa waxaan u ballan qaadaynaa laakiin anigoo ku hadlaaya magaca dawladda federaalka Soomaaliya in wax walba oo dawladda Soomaaliyeed ay awoodo inaan laga hagranayn dadkaas meel walba oo ay ka joogaan gobolada Soomaaliyeed ee dalka ugu dambeyn shacabka Soomaaliyeed mar labaad waxaan idin leeyahay wanaaga ugu badan dalka wuxuu ka dhacaa markaad idinku soo gurmataan soo istaaga mar labaad caawiya dadkiina iyo dalkiina waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhinaca kalena magaalada Muqdisho waxaa ka socda olole xoogan oo loogu jiro cidda noqonaysa gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya waxaase jira warar tilmaamaya in madaxtooyada iyo ra'iisul wasaaraha dalka ay isku khilaafsan yihiin musharaxiinta xilka gudoomiyaha baarlamaanka iyadoo uu sii xoogeysanayo ololaha loogu jiro xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa sii xoogeysanaya tartanka loogu jiro xilka uu baneeyay Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari 12 musharax ayaa u taagan xilkan waxaase ugu cadcad ilaa 3 musharax oo ay kala taageersan yihiin xildhibaanada baarlamaanka iyo xafiisyada madaxtooyada iyo sidoo kale xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo doorashadana ay noqotay tii ugu cuslayd ee xilkan loo galo laga soo bilaabo sanadkii dawladii Carte ee 2000 madaxtooyada Soomaaliya ayaa la sheegay inay taageersan tahay musharaxa Cali Maxamed Nuur Xaaji Cali oo ay doonayso in xilkan uu ku soo baxo laakiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhinaciisa taageersan wasiirkiisa hore ee gaashaandhigga Maxamed Mursal Sheekh oo isna xilka gudoomiyaha baarlamaanka taagan arintan ayaa salka ku haysa xaaladda siyaasadeed dalka iyo kala aragtiduwanaanshiyaha ka dhex jirta xafiisyada dawladda gaar ahaan labada xafiis ee ugu sareysa iyadoo markii hore ay wada taageersanayeen wasiirka gaashaandhigga balse markii dambe ay arrinta isbedeshay waxayna wararka qaar sheegayaan in taageerada xildhibaan Xaaji Cali ka mid tahay heshiis lala galay gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Professor Jawaari musharax Ibrahim Isaaq Gerow ayaa isna la sheegay inuu taageero ka haysto xildhibaanadii qabyo iyo koox kale oo kamid ah xubnaha ugu cadcad ee tartamaya ama u tartamaya xilka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Maxamed Nuur Sheekh Madoobe oo kamid ah xubnaha isagana sharaxan ayaa waxaa la sheegayaa in isna uu doonayo in uu galaangal ku lahaado dhinaca madaxtooyada Soomaaliya wararka kale ee soo gaaraya ayaa waxa ay sheegayaan in kudladii la baxday horusocod ee dawladda mucaaradka ku ahayd ay hoggaan cusub yeelatay xildhibaanada kooxdii qabyo ee baarlamaanka federaalka ayaa dib u soo nooleysay kudladii hore ee horusocod ee mucaaradnimada ku bilowday dawladda Soomaaliya xilli ay kaliya 3 bilood dhisnayd kudlada oo magaalada Nairobi lagu dhisay ayaa u socon weyday waaqic ka hor yimid oo xaalad adag ku abuurtay dalka kadib markii si weyn ay shacabka uga hor yimaadeen waxaana gudoomiyuhu ahaa xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Cidig waxayna markii dambe noqotay mid magac ahaan oo kaliya jirta wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya inay kala qaybsameen xildhibaanadii kooxdii qabyo iyadoo gudoomiyihii kooxda Cabdirashiid Xidig iyo koox kale ay la safteen kooxdii waday mooshika gudoomiye Jawaari waxaana la sheegay in gudoomiyaha cusub loo sameeyay kudlada horusocod gudoomiyaha kudladan ayaa loo sheegay in laga dhigay xildhibaan Cabdulaahi Maxamed Nuur halka gudoomiye ku-xigeenka aan hore u jirin laga dhigay senator Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag iyadoo xogayaha uu noqday xildhibaan Cali Cabdi Cusmaan Caliyow oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya kudladan oo mucaarad ku ahayd xukuumadda ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa la sugayaa waxyaabaha ay siyaasadooda ay ka bedeli doonto wararka kale ee Soomaaliya ugu waaweyn maanta waxaa kamid ah taliyihii ciidamada isku dhafka oo magaalada Gaalkacyo qarax ismiidaamina lagu eegtay oo halka lagu dilay isaga iyo ciidamo kale wararka magaalada naga soo gaaraya gaar ahaan waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee dhinaca Puntland ayaa sheegaya in qarax ismiidaamina uu ka dhacay magaalada una ku dhigtay taliyihii ciidamada isku dhafka magaalada iyo saraakiil kale qaraxan oo ahaa nooc ismidaaminta loo adeegsaday ayaa lala eegtay mas'uuliyiin ka tirsaneyd ciidamada isku dhafka ee gobolka Mudug ee ka howlgalaya magaalada Gaalkacyo waxaana qaraxa ku geeriyooday taliyihii ciidamada isku dhafka Colonel Cabdi Cabdulaahi Maxamuud Xoreeye iyo sargaal kale oo lagu magacaabo Cabdi Qani Axmed Kheyre
wararka ayaa sheegaya in askar iyo dad shacaba ay sidoo kale ku dhinteen qaraxan, wuxuuna qaraxa uu ka dhacay goob lagu magacaabo Jiro Cabdulaahi Yuusuf, waxaana weli halkaa laga soo sheegaya xaaladda inay tahay mid aad u kacsan. waxaa jira dad fara badan oo cambaareeyay weerarka, waxaana kamid ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug State Axmed Geele Xaaf, kaas oo weerarka ku tilmaamay mid wuxuushnimo. war-saxaafadeed uu soo saaray ayaa waxa uu sheegay in dowladda Galmudug ay ka tacsiyeynayso geeridii ku timid Allah u naxariistay saraakiishii ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan ururka guulwade ee gobolka Mudug oo koox dhagar qabliyaal uu sheegay in ay maanta ku dileen magaalada Gaalkacyo dhinaceeda waqooyi ee deegaanada Puntland. waa hagaag daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta barnaamijkii arrimaha Soomaaliya oo qodobo dhowr ah aynu kusoo qaadanay. barnaamijka lamid intaan ku kulmi doono waa anigoo Cabdullaahi Axmed Nuur oo barnaamijka la socodsiinayay. intaan barnaamijka lamid aynu ku kulmi doono waxaan idinka tegayaa sidaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.